lagu sheegay inuu yahay sir oo la soo geliyay social media 24 saac u dambeeyay oo laga duubay ninka leeyahay wasiir al-Cadaala waxaana ka duubay wasiir asagana la yiraahdo Umar Sharif check ayaa ka duubay ninkaas oo ahna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كليب كاسان جعلها إن وحير كتعليقيو يرد لنيرة يعني ربا إنه أصلا تعليق كبحيو كليب كي وسيرتها مع نهري وبراه بلشة رسولي وأي شيء كي سنايين وحشي كي سناي مارتي إنا شريف جاك يو وزير كحجين وزير كحجين كورفافينتا العدالة شيكي سنة. عبد الكريم قلت ورسول قولنا واحد كور مرينا حكمة كجفته عد كلا دبي اللي قد دبي وزير العدالة وحي تاي وحي كسر لنا يان هبل بور وأيقو صدر صدين فهن هذي بيشان هبل بور أيقو صدر صدين هو شقينا عيه والسعادة هو أمسيهين يعني كان أيا جود دور شوي كأها marka ra'iisul wasaaraha ayaa soo dirsaday ra'iisul wasaaraha wuxuu qortay warqad la yiraahdo 16ka warqadda 16ka waxa ka horeysay warqad kale waxa laga yaabaa September la soo qoray si doorashada u dhici lahayd mid ra'iisul wasaaraha wuxuu soo qortay warqad la dhahay 16ka marka ma aha sax ma taas qalad waayo 16ka waxa loo jeedaa heshiisa jiro oo ra'iisul wasaaraha uu saxeexay heshiiskaas waxaa la dhahaa heshiiskii 16ka heshiiskii 16ka waxa waaye 2016 doorashadii dhacday doorasho dad ban ahayd doorashada hadda la qabanayo doorasho dad ban way marka doorashada hadda la qabanayo waxaa la rabaa in u shaqeysa sidii heshiiskii 16 doorashadii 2016ka sidii u dhacdo kale sida loo qabtay sida loo yani hirgeliyay tan in loo hirgeliyo marka habraaci 2016 la dejiyay ayaana maaragtay kanne uu ku shaqeynaa maadaama labada doorasho ay yihiin doorasho dadban marka ra'iisul wasaaraha markii lagu wareejiyay mas'uuliyadda oo doorashooyinka inuu daadiyo sababtoo madaxweynaha murashax way 16ka hadii lagu soo celiyo oo ay ka 16ka inay ka bixiyaan ay rabaan waxay rabaan labadood 16ka inay ka bixiyaan meesha 16ka marka hadii ay ka bixiyaan maxaa imaanayo doorashadu waxay noqonaysaa labadooda sida heshiiska ay ku yihiin in maaragtay doorashada banaadirga loo hirgeliyo macnaha saas way 16ka ra'iisul wasaaraha saxiixay wixii ra'iisul wasaaraha saxiixay ee rabaan inay meesha ka bixiyaan wax ayka ay samaysteen inay meesha keenaan mas'alada saas way marka hadda doorashada banaadirga dhacday oo maaragtay oo yani already xildhibaanadiisa shahaadooyinka la siiyay aqoonsiga la siiyay habka ay ku dhacday ma aha habkii ra'iisul wasaaraha uu saxiixay ma aha hab ka duwan way marka maalin hore waxaan arkay ra'iisul wasaaraha oo la dhahay wuxuu hambalyeynaa xildhibaanadii la doortay banaadirga xildhibaanadii la doortay banaadirga laguma dooranin heshiiskii 16ka laguma dooranin heshiis oo labada nin ay samaysteen waa kaasa la fahmo heshiiskii 16ka laguma dooran marka runtii ra'iisul wasaaraha intuu soo istaagay shaashada telefishinka asagoo hambalyeynaayo lama arkin qoraal maaragtay iyo sawirkiis la isku qabtay sawirkiisa qoraal lagu soo hoos qoray waxaa lagu soo maxalli laga soo deeyay maya Universal TV ayaa waxay ku soo qortay page-keeda Facebook ku soo qortay runtii ana meel kale kuma arkin marka ma hubno inuu maaragtay ra'iisul wasaarku hambalyeynayo ra'iisul wasaar haddii ay u hambalyeeyo wax sharciga khilaafsan hadda xildhibaanada lagu doortay banaadirga that's why dad badan maaragtay u leeyihiin xildhibaanadan ma ictiraafsani runna way sida habkay kusoo bixeen ma habkii oo yani maxaa la yiraahdaa xeerarkii iyo habraacii doorashada oo ra'iisul wasaare uu saxiixay oo la dhahay maxaa la yiraahdaa heshiiskii 16ka ma aha maanta marka heshiiska 16ka ay ka hadlay heshiiska 16ka maxaa waaye heshiiska 16ka waxa waaye laba kursi gabdhay ahaayeen because asalkaba
qoonda dumara labadaas kursi lagu soo qaatay ma fahamtay marka ra-iisul wasaare kaasoo saxiixay hal kursi oo shanta ka mid ahane laba beela u tartameen haddana shanta kursi afar ka mid ah beel kasto keligeed aad tartantay marka keligeed aad tartantay markaan ku leeyahay waxa waaye xildhibaanka markaas kursiga ku fadhiyey iyo qof kale oo beeshiisa ah aa la tartansiiyey ma fahamtay marka kursiga waxaa kusoo laabtay isla beeshaas oo kusoo laabatay beel kale lama siinin yani beel kale looma furin ma fahamtay daafurnaantii waxaan ay sheegayaan ayaga qaladay ka fasirayaan laakiin daafurnaanta lagu sheegaya waxa waaye isla beeshaas xildhibaanka markaas kursiga ku fadhiyo doorashada asaga ma xirin karo malxiis ma samaysan karo waxay u furan tahay bulshada kale oo rabto inay ayagana murashaxiin noqdaan way u furan tahay yani daafurnaanta saasaa loola jeedaa laakiin dada wax kale u fasiraa daafurnaanta waxaa loola jeedaa qabaaisha dhan laysku dhafo maya marka ayaga waxay sameeyeen qabaaishii isku dhafeen sababta qabaaisha layskugu dhafayo marka maxaa waaye sababta waxa waaye ninkana wuxuu rabaa ina Shariif Jeega wuxuu rabaa inuu kursi boobu rabaa marka alcadaala haddii uu ka diido oo markaas uu dhaco alcadaala sida alcadaala uu sheegay ra-iisul wasaaraha iyo wuxuu igu yiri 16ka lagu soo celiyo haddii uu kaas ku adkeeyo hadda ninkan awood ma laha because wasiirka la sheegayna ma aha gudoomiyaha la sheegayna ma wax uu yahay ma jirto nin oo xil raadinayo kursi raadinayo wuxuu isleeyahay marka alcadaala adiga ajendaha meesha aad ka leedahay inaa kursi aad xishid xildhibaan aad noqotid kursi aad boobtid haddii uu yani kugu khilaafo codkiisaad duubtay ceebay macnaha muxuu ku ceebaynaa in alcadaala uu yahay nin ka baayaca mushtarayo business ka sameynayo kuraasta banaadiriga marka hadda saasaa dhacday labadoodba waxay ay meesha ka bixiyeen heshiiskii 16ka ka bixiyeen kuraastane hal kursi ninkaana isku qoray ina Shariif Jeega isku qoray